شركة حزبية عارض كسومالان هل كان وجه سعودي هي حتى صور دماغي هل كان كل هذا يور في دينك مسؤولين كتكسر لبعض حزبي وعدي سيدو كلا وطني degmada Hargeysa waxa runtii aan ka wada hadlaynay waa barbilow in la isbarto in la isku yimaado in la wada fashado waxa uu ay tahay maalintii horeysay in safaradka shalay dhacay in la sii qaado inay maanta ka bilaabato golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee degmada gobolka Maroodijeex iyo degmada Hargeysa inay halkan la isku baro guddiidana ay sarkaan shaqadu maanta bay bilow noo tahay way socod doontaa waan fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya ilaa galabta la shaqeyn doonaa ilaa ay intaan gaarayno natiijadeena haddii la yiraahdo dhammaan musharaxiin xildhibaanada soo baxay ee gobolada ku maqan iyo inta halka joogto waxaan leenahay inay magaalada soo wada galaan la isku wada yimaado si shaqadu si habsami ah inoogu socoto haddii la yiraahdo isafkaradka wanaagsan ee labada xisbi u socda waxaan rajaynaynaa inay guul meel dhala haddii la yiraahdo ay gaari doonto ay kuna gabagaboobi doonto in barbilowga fiican oo ku dhamaan doono guushii ay ummadan isbeddelka ugu codaysay haddii la yiraahdo ummadan isbeddel buu codaysay labada xisbi waxay shaqadoodu tahay ama mas'uuliyadoodu tahay inaanay khasaarinin tacabkii shacabka Soomaaliland ee ahaa inay doonayaan shacabku inay isbeddel yimaado oo dhinac ka raati meesha ka baxdo taasoo bay tahay ujeedada aan isku nimidna inaan weelayno oo aan meel dhigno qof kasta oo u codeeyay isbeddelna oo ku farxi doono guusha labada xisbi soo hoyatay iyo tacabkii uu galiyay in meel lagu sugi doono haddii la yiraahdo aad iyo aad baad u baahantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدا walaalkay sheegay maanta waa maalin taariikhiya waa maalin guul u ah ummadda reer Soomaaliland guud ahaan meel kasta ay joogaan ee u codeysay isbeddelka runtii walaalkay baa dhameeyay waxay ahayd kulan isbarasho oo isugu yimaadeen xubnaha golaha wakiilada iyo golaha deegaanka gobolka Maroodijeex halkan maanta ay isku baranayeen kulan taariikhi ah oo hordhaca oo isbarasho runtii ayaa ka dhacay halkan waqtiga xayaad magaalada Hargeysa waxaan baa u soo jeedinaynaa xubnaha kale ee maqan ee waxaan jeedaa gobolada kale ku sugan ee guuleystayaasha labada xisbi ah insha Allah taala inay iyaguna soo galaan labada maalmood ee soo socda marka guushii dadka shacabka ah ay u codeeyeen xisbiyada mucaaradka ay ku aamineen insha Allah waxaan rajaynaynaa in guul laga gaari doono guddiyadiina insha Allah hawshoodii galabta ayay bilaabi doonaan ummadda reer Soomaaliland isbeddelka u codeysana guul insha Allah bay arki doonaan waxay ku farxaan walaalayaal waxaad ku farxadaan baad arki doontaan labada xisbi way isbahaysteen guul bay soo wadaan insha Allah waa la wadaagi doonaa kulamadiina way bilaabmeen sidaasaan insha Allah gacmaha isku qabsanay isbeddelkii loo codeeyayna waa la naga arki doonaa maanta intaasay ku soo urursan tahay wixii hawle ee kala dib baan insha Allah idin sheegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulankan wuxuu ahaa kulan isbarasho in la isbaro xildhibaanada ku soo baxay labada xisbi iyo in bilow ay noqoto bilowgii isbarasho xisbiyada mucaaradka ah ee aqlabiyadda ah ee guuleystay iyo sidii loo amba qaadi lahaa labadii guddi ee labada xisbi laga kala magacaabay